انتو بوليوغو أدوكا كعيلي يركونك بوكي انتو بوليوغو أدوكا كعيلي يركونك بوكي ورعاشق أومي أكونك شيقين ددالة دوغيني ورعاشق أومي أكونك شيقين ددالة دوغيني حدوكو أسيبين تادي فجوك تجعيل ملأويدي كنتي ما إلميسي حدوكو أسيبين تادي فجوك تجعيل ملأويدي كنتي ما إلميسي ميو أرقاقو أستانو أهادا يشينو قلودن ميو أرقاقو أستانو أهادا يشينو هو وكسي ميلا أختي أساسو جيدا waayo halkan fadhigeeda waxaan doonayaa maskaxdayna fiirisa inaan idin dhibana ma doonayo hooyo maxaad doonayso hooyo annagu markastaan ku warwarsannahay habeen iyo maalin masaxe markaan arkay inankayga xaaladda ku sugan sidee doonayso markaa inay faraxsanaado aan seexdo maxaa xalaa waa runtaa hooyo laakiinse anu anaa saa go-aansaday maxaad go-aansatay markaa waxaan go-aansaday inaan london iska tago hooyo oon meeshanba ka fogaado yaa oo markaana haa haye warwarin laakiin waayo mawaaliyo ayaa halkaa jooga iyo caawinaya iyagaa wax walba iga caawin doonaa londonna waa meel wanaagsan hooyo maskaxda ay soo degi doontaa ma doonayo dhibaatayntaan ka badan inaan arko saa darteed baan halkaa ugu noolaanaya hooyo oo hooyo waxaad doonaysaa anigii aabbahayaad naga tagtay hooyo keligeen noolaano idinkama tegayo hooyo dee laakiinse waxaan doonayaa inaanan idin dhibin anugu xaaladeydana in laygu daayaan doonayaa waxaan doonayaa muddo yar inaan halkaas soo joogo si ay maskaxdii igu soo degto dhibaato aada u badan baan hooyo soo maray anugu waxaan doonayaa inaan is ilowsiiyo markaasaa darteed baan halkan uga baxaya anigu noloshiina ka bixi maayo laakiinse magaaladu baan ka yar baxayaa hooyo markaa aduu hayo warwarin waayo anigu waan idinla joogaa mar walba hooyo wiilkiinaan ahay idinka fogaan maayo waa ballantaasi شافي واروح الشيء حلا بريك يكون فرحتنا إن أنت هذه اللي دعوني ساكو حلا صلاة هذا أنا قصوبية مرة منه إن أنت يراد علما هبلي هذا يرير مرة منين نقولسنا وأي كواسا نقص بحياة بيرادين مركو إحنا ملاين علما يكهلن سادت هذا هبلا يربي قولسنا ايه horta kala malacagta waxaan kugu siinay sida hablaha yar u guurisay anigu waxaan ku rinay hagaasani kan anaga iga helaana waxa anaga waxaan loo keentay dumar xun loo reemiye waxaan ku badawa oo marba shan bacayno marba meel u booday aniga inanteeda hadana ku qanacsanin lacagna kuma sinayahana yiikeen mareeraha kale soo shaqadan ku nimsay inanteeda soo meel samee waa biciyaal suuqinba ku aniga aba ka boodayba inantii inankii qabiisa u sii eegeen habla maleedin anagoo fadhina waxa soo kalna weligii ma arag nadilaalata mala yacni yabatay uf oo dhigaysa anigu reer masaakiin aan rabaa uma baahin reer buuq leh mid kale islaan haba qabaa ii keenin waxba ka baqalin hooyada ana ku keenay nin kaal alago lacag la waliba oo qurba jooga saas sheegtay oo hooyadii bar hore dhimatay ha waliba mar reer yar faqiirina waxa reer taajirin dibadda ku noo oo ma sha Allah tabarakallah abi hooyadiina dhinteen xagga hore si dhinteen aan hooyo aaba lahayn xitaa walaalo lahayn marka waan ku barayaa ido iika oo lacag la waliba ayaa kale maaniga ku talay misaadiga isku talay dadka nool baa doonaysa inaad aasto reer wanaagsan ilahow isii dhow bila buuqo bila rabasha inta nool hayna habara ka baqan ayaan inta adeer wada dadaalisa of dhageysa xamiday ninku weyn dibadda joogo keligii nool islaanta laadu doono miiga lacagta hoo diro laakiin ma rabna islaanta iyo reerahan noocan oo kale aan ku noolahay kale noloshan oo kale ma rabin aan ku noolaado habar igu qeylasa Afrika sacdo ma bahni naayaa wala qeylinaya wala hadlaya shirab imika waxa doonaysa hooyada inaad ka soo horjeesto samad amarkeeda diido dhageyso walaal anigu waan cadhoonayaa laakiin dad caawana la seexato cadhadu way iga baabaaysa intan wala casho ku sameynay ayaad xitaa aad noo jartay telefoon xitaa nagama soo qaraacin waayo walaal adigu maxaad noo soo garaaci weyday qofka markaanadu imanay waxa lagu dhadaa ma imanaya caawa iga raali noqo walaal anigu xoogaha wan yar mashquul runtii caawa xalayo dhan baad sugaysan waliba cunta diyaarisan aad baan uga xumahay waan idin lugooy xataa waa runtii idin ma soo qaraacin laakiin walaal waxoogaha mashquul ban yaraha maanta oo dhan ma raba inaan idinla joogo aabana iiga waran isaguna sidoo kale uu iga cadhaysiinaysaa maaha
walaal horta ma ogtahay inaanan xalayna cashay saakana quraacan adiga dartaa welibana saan adiga kuugu murugaysnayn dad cunto ku kariyey walaalayaal walaal saa ha igu odhanin sabab idhegeysta walaal maxaa xilligan bilaa cunto idinka dhigay waxaasoo dhan ha igu odhan adigaa sabab waa walaal qofka jecleed markuu kaa tago waa sidan oo kale welibana kugu soo noqon waayo wax kugu dhacay anagu walaal aabana ma saasoo kale cunto ma cunin dhegayso walaalo ninka uu kugu xun yahay soo maaha dhibka ninka ayaad noogu imo weydiiyey reerkooga walaal maxaad saa u leedahay anigu waan faraxsanay ninkaasina aad buu ii jecel yahay xitaa saaka wuxuu igu yidhi ina mari waan wada tegaynaa xalay toolana anigaa diiday waayo gabadhiiba nalaga soo doonanayay aan dimaashiyahan saa darteed ayaan u mashquulay markaa walaal iminka waa inaad cuntaan anigana haye baqanina waayo dadkaasi aniga way i daneeyaan islaanta sodohda iyana aniga way ilaalisaa ninkuna sidoo kale wuu jecel yahay soo fadhiista walaal yaa taasa muhiima kan dib jirkee salaamu calaykum calaykum assalaam bow asalaatan degdegi maxay taag hooy ii sheeg horta islaantan maxay doonaysaa meesha ka qabanaysaa ii sheeg islaanta anaga saaxiibo hawlahayga u timaada yadanahayga maxaa kaladaysaa hooy aduu warkaaga ken hooy anigu mid baa kuu sheegaya baan kuri hooy anigu ma doonay inaan guursado ma doonaya baan kuri ma fahamtay inan yar baan ahay marka waxaan doonaya inaan shaqaysto marka waxa weeyaan gabadhan waxaad ku tiraahdaa inankayga guuru ma raba waxaa ku dhe haa dee guriyo waxaba hooy imika lagama sheekeynayo hooy haddaa maxaad ka hadlaysa ii sheeg anaad ka hadlaysa guurkayga baan kuri ma fahamsanay hooy anigu guur ma doonayo waan shaqaysanaya waxaan baranay arday baan ahay marka ayaan laga mashquulin dee arday iska aho anu waxbaan ku baray dee isku anfac adiguna maxay kaladaysaa gabadhan hadday ii timaado maaha inay cidi dilaaleynayso un asxaab baanna way soo gaadhaa un intaan weeyaan ujeedadu laakiin adigu waxii baro oo isa soo saaro nin noqo intaasaa lagaaga baahan yahay waayo ninka ragga waa inuu meel iska soo saaro hooyo waan garanaya waan soo saaraya baan kuri laakiin hooyo maxaad ku soo saara baan kuri dharartii qayrkay way dhooftay anugu lacag baan doonaya waan dhoofaya waxbarashaan u baxaya waxbarasho jaamacadeed baan doonaya dibaddan tagaya hooydu ma garanaysa marka lacag baan doonaya ad ii diyaariso lacagtiraysay soo saar baan kuri hooyo yaa oo lacag maxayaan ku hayay anigu midda kale waxbaan ku baray dee jaamacadaada markaad dhamaysato eed waddankaa ka shaqaystada wax iska dhigsato hooyo jaamacadaha waddanka waxba laguma barta baan kuri hooyo anigu waxaan doonaya inaan jaamacad dibaddaa u baxo wax soo barto oo dhakhtarnimo soo bartaan doonaya waad ka doonaysaa markaa inaad tagto haddaad meel tegaysa dee lacag samaysa anuma lacag baan ku hayaa hooyo lacagta sabaad u haya noo sheeg ayaan u taaglahay anigu iyo nusa saacahaaga iyo korintaadii wax kalena kuma hooyo midaan kuu sheeg horta markan wax kuudiyo mad musaacad ka sheegaysa war maxaad haddaana weydiinaysaa anagu lacag maanu barnaamijso waanu soo qadnaa haddaad dhoofaysa dee shilinkaaga ku dhoof haddii kalena dalkaaga aamin oo ka shaqaysa maxay hooyo waxaan doonaya lacagtaa daasada kugu run jirtay ma garanaysaa daasada afka xidhnayd yaa haa tii lacagta ku jirtay baan doonaya baan kuri soo saarta hooyo oo marka afarteedii midho dahabkaaban adiga ku xagashaan kugu diraa kuguma diray cimrigii baan soo urinay kuma siinayo waxbaro iskeen dhoof adigu ya hooyo inaan kaaga maad siinaysaa ma lacagta miyaan tuuraya anigu intaa liblaabkeed baan kusoo celin haddaad siin lahayd inaan kaa kale hadduu dhan lahay miga si waad siin lahayd baan kurday aniga meel balay kaa tusi hooye waxaan doonaya lacagta inaad soo dhoofo oo wax soo barto iska shay magaranaa iska tegayo meelaasaan ka baxayaabe hadhow hay soo raadin migaba arta hariib run ahaantii inaantaydi maanta aad baan u faraxsanahay ma og tahay waayo adiga iyo sirbaab baa yimiday haa aabbo anaguna waan faraxsanahay ninkayguna markasta maasha allah inankaygii sirbaab waa markii ugu horreysay gurigayga cagahaaga soo gelisa soo fadhiiso aabbo soo fadhiiso waa mahadsantahay adeer annagana gabadhaada waan ilaalinaya mar walba idhegeyso aabbo adigu xaaladahaaga suma fiicnid aabbo run ahaantii anigu aad baan u fiicanahay maasha allah wax iga dhimana ma jiro ma ogtahay inantayda siimaan doonayaa inaan u gooriyo inankii ma garanaysaa ay habar wadaag ahaayeen baan doonaya inaan u dhiso arrinkaasna uu arrin iga soo ga'ay ma og tahay dhammaanta reer bii waxaad noqotay aabbo xaajigaagiiba kula socda inankaan soddog oo hay la tashadaan hadda waa wax caqligale ma og tahay marka waxaan doonayaa inantaasiima inaan u dhiso inankii walaashay dhashay abtiga u ahaa adeer waa si wanaagsan annagana garab ballaaran ayaan kugu siinaa guurka walaasheen maxaa yeele waa waajib annagana saaran maadaama anigan ehelka qayb ka mid aan ahay haa runta aabbo anigaana hala soo hadlay wax kastana waan dhammaynaynaa hay aabbo runaantii anigu dee waan fiicanahay ma garanaysaa aabbo walba wuxuu doonaya in intiisa si fiican loo guursado oo si sharafle loo guursado adigu maasha allah reer wanaagsan baad heshay xaaji wanaagsan baad heshay reerka aan inanta u doonay reer wanaagsan aabba aniga markasta hay baqanin anu farxad baan ku noolahay walaalahayna waxaan u rajaynayaa farxad may aabbo adiga kuma baqaysan kuwa baqay reer wanaagsan baa ku qaba idhegeyso aabbo neehayarna anigaa ka dhaadhicinaya wax kasta
marka haye inantayda de idinkaa isku dumaray iswaraysta oo waxaan kuri inanta guurka ka dhaadhici dumarka guurka markay yarayo ka baqaan moogtahay saad igu baqasa adiguba haya aabbo iminkan u yar tegaya haya siimaa kaale walaal adiga waa lagu guursanayaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad naagweyn iska dhigto waayo adigu mar waad noqonaysaa mar dhow wiilkaad habrowdaaga ahaydeen ayaa lagugu darayaa walaal ma fahantay marka waa inaad walaashaana aad mar kasta la haa walaal waa sidaa inaad dardartaa oo loo baahan yahayba laakiin walaalo dhegeysanay ha yare adigu inaad degdegto lama baa nimka aabaad la joogaysaa hadhowna nin khatara ku imanaya magaa dhaba maya anu ma rabo guur alma waqti fara badan ma haysano min fadlan maraan iska tagnaa okay waan baxaynaa laakiin walaal iminka dadka xisan Soomaaliyeed inaad noo soo fasaxdo weyn gelin kooriya gelin kadaba maanta dhan idinka idin joogta marka min fadlan anigana xaaskayga waqti ii siiya waqti baan u baahanahay idinkoo raaliya marka mar kalena insha Allah idinku idin keeni doono waa si wanaagsan walaal isugu hadiyad baad adigu leedahay guriga taale yirasug hadiyada ayaa ii keena walaal hadiyadaas sug walaal way ku keenaysaa marka sadar walaal ho waxa ku keenay Ramiish laakiin haa walaal habeenkii arooskaagu keenay tuu awoodi waaday inuu kugu yimaado guriga waa caadi walaal qaada adiga leh marka haa walaal waa runteeda wuu xishoodo arooska ma imanin laakiin imika qaado okay mishkalad male hadiyada lama eego waa la gudoomaa oo kaliya okay waayahay waan sii teginaa walaal hay walaashii macaan khayr bayna walaal isku ognahay inagoo nabada insha Allah ina mariya okay maalin wanaagsan haye maalin wanaagsan walaal dhawa maxay go'aankan gaadhi sheeg aabo anigu waan gaadhay go'aan aabo ma heesi hagsan wax igu sheeg wax yaro bilaa macni baatay aabo sidii hooyo ku sheegtay waxaan doonayaa in London iska tago anigu idin ixtiraamaya waliba mala jeclin inaan idin dhibo saadirta waxaan doonayaa meeshan bayna iskaga fogaado dhibaatada xamili waaya abaano war hadda waxaad joogtay maanta ma waxa sida la timid imika wax kale kuma heerantay waxa ku hadhow kaliya abaano ii sheeg xun baan ku sheegay waxaan doonayaa fursad siisan London u tago oo aan asxaabtayda ula soo farxo oo nolol fiican ugu noolaado halkan abaano warar baan ka dhamaan lahay ma doonayay marka wararka inaan ku sii jiro waxaan doonayaa nolol xor inaan ku noolaado oo maskaxdu ii degto marka ma xadoonaysaa adigu inaan halkan ama xabuus ku ahaado oo waxaad jeceshiin idinku aan sameeyoon taas abaano ma awoodi karo waayo waxaan doonayaa nolosheeda wanaageeda inaan ka shaqeeyo mana doonayo inaan waxaan ku waxyaalo hore tagay soo xasuusto guurna diyaar uma yahay imika guurkan markaa abaaniga dila hor carrisaan iga daayaba waxaan doonayaa inaan waxaan ku qof wanaagsan noqdo oo lacag soo shaqaystaan doonayaa meesha nolosheeda runtii waa nolol fiican wad ka heli doontaan idinkuna asxaabtayda baa halkaa jooga iyo walaalkay markaasaa darteed waan tagayaa abo iga raali noqda waan tagayaa buu ku leeyahay annaga maxaanu ka hadlaynay sheeg shirkadan baan ku dhiibidan hadlayn laakiin saabo idinku waxaad jeceshiin mar walba haddaan lagu sameeyo ku farxaysaan anigana farxadayda xagee ka baxaysaa sheeg oo annaga ma wax baynu kaa baynay sheeg shirkad maana mas'uul kaaga dhigan lacagta hantida gabigay meena gacanta ka saarnay sheeg maanta waxaad joogto waxaad ii keentay Mareykanka tagay oo dalkaaga ma joogto isla shaqaysid annaga maana lacag ku siin wax walba ku siin sheeg wax yar bilaa macna ba tadqona annaga kugu dulqaadan meena waxaan wada war maxaa ku haystaa balaag wuxuu la leeyahay maanta abo waxaan kala dhalnay abo ku dhacay abo dhakhtar balaas fi qarac dhakhtar adduunyada maalinba sheeku keenay imkana wuxuu ku leeyahay dhoofi intuu lacagteeri weydiinay shilinkeerana fidinayna dambe ahayd maantana wuxuu marayaa magaalada bay iga saaro kharash ugu bixi maalinba sheeka gurigan iga imanayso cusub hooyo maxaan sameeyay imka aduu qof wanaagsan baa tahay xoogaygi waxaan ku abaalkiisa wad guday laakiin ninkiinu inuu waalu doonay aniguna waan xisaabtamaya imka reerba ii soo socdo ma ogtahay aan casuumayo kaale ariga rimaan isku wixii dhan bay iga tiray markaa hooyo waxaad ogtahay iska yar ku dheh adduunyada waxaan la arkayn mal wiilkaaga imtixaanka waa ku dhacay maxaa jiro way sheeg maxay ka qarsoon maxay wiilkaaga imtixaanka u fariisto waa ku dhacay maadada ugu hooseysa oo keenay maadada ku baasin ma jirtaba fahmaysa ingiliishkii xisaabtii carabiga kulli dhulkoo tagay marka intaasoo sanadood waxaad ku soo daalaysad ku soo tacbisay bilaashay ahaayeen wax fayda u leeyahay laakiin ma sheegin walaalo wuxuu yiri imtixaanka waan baasay shan saddex bilood ka hor dhacay ma sheegay idin ma sheegi karo maxay nin dhibaatadiisa ka hadlaya ma jirto dunidan markii inuu saxaysiyo baan sheegay waa ku qasbay jaamacadda sanadkan oo galis laana ma gali karo maxay yeelay imtixaankiisa iskuma filan natiijada laga doonayo saas darteed u dhacay marka
isaga laftiisa ima sheegana wiilay saaxiibayiin ayaa ii sheegay marka la ii sheegay runaantii calool xumo darteed waan loo dilaacay maxay wiilka walaalkayaan mustaqbalka wanaagsan ka sugayay oo lacagtiga guriga masaaqadnimo ku darsaday tacab khasaaray maad mar hore ii sheegtid ninkan xoolahaygana uu qaba maada walbana uu dhacaaba leeyahay wax aqli gal maaha bal intaas oo dhan maxaan iska tacab khasaarinay alla way tolay hooyo si hooyo كان عندك دكتور كور هو يا معان هو isdajib wax walba naga dhameynay hooy la xigana isku warwarina hooy aamus marka raba adaa wiilkaaga wiil fiican oo isdajib hooy lacagta iga guro waxaan islaan fiican buu noqonayaa waxba male waa matal hooy maxaad kaga male hooy insha Allah iska dhamaanaysaa hooyada markiina ka yar kalkooliso waa noocaas oo kale wili isaga si xariifinayo untigeeyo ku leeyahay wax garanayo kale ha walaal adigu waa idin fiican baa tahay waa maasantahay laakiin walaal ma waxaad doonaysaa inaad waxaan ku maalin walba aan sugitaan bilaa dhammaada aan ku sugo aniga maxaad ii sugaysaa markaa haa dee walaal waxa weeyaan sugitaan bilaa dhammaada maxaa kugu dhaco la warwarsan tahay gurigeena warwar miyaa ka dhamaadaba habeenii maalin murugada way taallaa laakiin hadda ka hor murugada kugumaan arkin maxaa soo siyaaday maxaa yeelay walaalkay imtixaanka waa ku dhacay kuma baasin laakiinse taasi mushkiladba ma lehe waa caadi mushkilad maxay u lahaan weyday hooyaday maanta hadalkaa markay maqashay sirajoogay ka dhacday aniga runaantii naxdin awgeed waxaan sameyn garan waayay walaalkayna runaantii qof war maqlaya maa habeenii maalin hadal iyo murnan macno layn ayuu meesha lasoo taagay maanta haddii uu dadaali lahaana khayrkii uu dhaafi lahaa anigana waxaan sameey ma aqaano badanka ya saacadan laakiin waa saacad qaaliye haa ramiish baa ii keenay laakiin xageed ka keentay saacadan waa qaali haa maxay waana dhaymankana sida lagu iibsaday aad bay u adagtahay annagana ma iibsan karno marka iyaa ku keenay saacadan waa qof qaali ah kulli saan dareemay qof adiga qaali ku ayaa ku keenay soona ku ramiish wiilkii maalin ramiish haa aabahay la joogan dhakhtarka kugu bareeyay waayo aabahay ayay shirkadiisa ka shaqeeyaa wiilka haddii in adeerkaaga yahay aad isugu wanaagsaneed habeenkii maxaad si wanaagsan ii bari weyday haa waa runtaa wiilka ilma adeer baan nahay ma aqaano kulli waa degdegsaneed anigana qof shicibo meelaha iska marmarayaan oo haysta ka waran haddii aan ogaan lahayn uu familiga ka mid yahay laakiinse mar kale waad baran doontaa si wanaagsan u baran lahaa laakiin mushkilad ma leh mar labaad waa inaad bartaa idinku filan waad baran waad baraysaa waad ku khasbanta maxaa yeelay gurigan casuumaad ballaaran ugu sameynaa maxaa yeelay barashadiisa qiimo weyn bay ugu suganta aadna waan ugu farxi doonaa maxaa yeelay waa wiil aad iyo aad ugu wanaagsan maanta haddii uu saacad dhayman aan ku iibiyey idinku yacni qaraabo sare ah beritolan wax ka weyn ayuu ku qaban karaa saas darteed wiilka inaan barto ku khasbana qabanayaa marka hadiyadani waa hadiyad yar kama hadlaya hadiyadan maxaa yeelay ruux bini'aadanka barashadiisa qasaan markuu ehelkaaga yahay waxyaabo weyn bay ku samaynaysaa marka waad ku khasbanta wiilka inaad bartaa marka wiilka barashadiisa qiimo weyn bay ii samaynaysaa aniga ya haa intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadid ka joogta jacayl ma la oyday